dalka Suudaan waxaa ka sii soconaya mudaharaado lagu dalbanayo inay faraha kala baxaan ciidamada militariga dalkaasi maamulka dalka isla mar ahaantaasina waxaa laga codsanayaa inay ka fogaadaan dhammaan hay'adaha maamul ee dalkaasi. Mudaharaadayaasha oo isugu soo baxay bartamaha Khartoum ayaa waxaa ku soo biiray tareen siday mudaharaadayaal ka soo qaaday gobollo kala duwan oo dalkaasi ah si ay ugu biiraan waxa ay ugu magacdareen ka fogeynta maamulka ciidamada dalka. mudaharaadayaashani oo qorshe u ahaa inay shalay toole soo gaadhaan ayaa kadib dhacay mudaharaadkii shalay toole dhacay iyagoo ku sababeeyay in ay ciidamadu ka dambeeyeen inay kharibaan nidaamkii wadada ee tareenada taasi oo keentay inuu tareenku kadib dhaco waqtigii loogu talagalay in mudaharaadada keeno bartamaha caasimadda. xilli mudaharaadadaasi socdeen waxaa goobaan halkaasi ka fogay inuu ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalle Xamduug ku qaabilay xubno ka tirsan bangiga adduunka uu hogaaminayo gudoomiyaha bangiga adduunka isaga oo sheegay in la doonayo in la soo gabagabeeyo khilaafaadka ka dhaxeeya dhinacyada kala duwan ee ku midaysan maamulka dalka Suudaan isla mar ahaantaasina uu bangiga adduunka u ballan qaaday in dhawaan la soo gabagabeyn doono iyadoo dhanka kale wakiilka Mareykanka uu qaabilsan arrimaha Suudaan uu isna wado kulan gaar ah oo la yeelanayo dhinacyada kala duwan ee shacabka iyo militariga si loo dejiyo xaaladda sii xumaanaysa ee dalka Suudaan. dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii xirfadlayaasha Suudaan ay ku baaqeen in maamulka laga fogeeyo militariga haddii kale aanu nidaamka jira waxba dhaami doonin nidaamkii Cumar Xasan al-Bashir oo dalkaasi soo xukumayay in ka badan 30 sanadood balse ilaa hadda ma jirto jawaab rasmi oo ka soo baxday dhinaca ciidanka marka laga reebay in ciidamadu sheegeen in aanay waxba u dhimi doonin mudaharaadayaasha inkastoo booliisku ay mudaharaadayaasha isku dayayaan inay ku kala kaxeeyaan gaaska dalka ka ilmeysiya.